أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه وقد ضم الحياة بدفتيه. فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريما؟ سماء بل شفاء بل هداية، لماذا أنت لم تدرك نعيما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى. waxaa casharkeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda 283 ee suuratu lbaqara. ilaahay waxa uu yihi subxaanah: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. إلهي وحول سبحانه: وإن كنتم هدي آد أهاتين على سفر سفر دشي هدا كسقناتين أو سعوتتهين أو وتداينتم هلكا أسو قدر وحنا آد كلا دينستان معناها إذن كو سعوتاء هدا دين كلا قادتان وي مركا وتداينتم أسو قدر. الله وحوري: وإن كنتم هدي آد هاتين على سفر سفر دشي أو آد سعوتتهين أو وتداينتم وحنا آد كلا دينستان أو ولم تجدوا أيدان هلين إلا إن سفر باتهين كاتبا مد قرايو إدين قراه فرهان أي فالمعتمد عندكم أسو قدر وحا أكتي إن الاعتماد يلا عسكان أيو أي إدين سارني وحوي رهان رهم ويان رهمداسو مقبوضة لقبان أيو والرهان وجمع رهن waxyaabo la rahmo oo gacanta lagu dhigayo la qabanayo ayaa idin saaran. fa in amina hadii uu ka aamin noqdo bacdukum barkiin bacdan barka kale, ama fa in amina haduu aamino bacdukum barkiin bacdan barkii kale haduu aamino oo yiraahdo waxba rahna haysiina iska soco, falyuaddi haguto الذي ائتمن كيلا آمني إلا ديمية دينتنا لسيي أمانته أماندي سيهجتو وسيدي هو صبح يوخيامين وليتق الله إلهينا كعب صدو اللي هي ربه ربي أها. أما وليتق الله الله كعب صدو ربه ربي هكبقو ولا تكتموا الشهادة مرخاتينا قرننا مرخاتيك فرا هدي ليدين راقلنا قلا ولا تكتموها قرننا الشهادة مرقي مرخاتيك أقيدين هقرننا ومن يكتمها روح شهادة قرية يسقوك فإنه روحاسي آثم واو الدنبابي قلبه قلبي يسو هو ده الدنبابي لكن قلبي وحا الله عبره ومحل الكتمان هلك وحلقو قرين يوي. والله ألنا بما تعملون وحد سمين إيسان عليم كي علم بدنوي. لله الله أيوم بي أسقنادين عدك لو ما سقنا وحصري إيا كوبس إيا قاريلي وتقديم ما حقه تأخير يفيد الحصر مرك لله أي لا لغيره. الله أم بأسقنادين عدك لو ما سقناني ما في السماوات سموين كدحدو دا وحا كسوغان إيا وما في الأرض أرلد دحدو دا وحا كسوغان وإن تبدو هدي آد موچسان
maa fii anfusikum nafihiinna waxa ku sugan aw tukfuuhu ama aada qarisaan yuxaasibkum wuu idinku xisaabinayaa bihi maagaasi allaahu alle waa idinku xisaabinayaa oo haddii aada muujisaan waxa naftiinna ku jira iyo haddii aydaan muujin oo aada qarisaanba labadaba waa laydin qabanayaa wixii naftiinna kusoo dhaca fayakfiru ilaahay markaa waa u dhaafayaa liman yashaa cidda uu doono inuu u dembi dhaafo ilaahay waa u dhaafayaa wayucadibu ilaahay waa cadaabayaa man yashaa cidda uu doonana waa cadaabayaa wallaahu alla calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awoodee u awood badan weeyi aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegay awalan xuluulu rahni maxala alkitaabati cinda asafar marka socotada la yahay ee aanay suurtagal ahayn karaani wax dadka u kala qora in la helo deyntii mu-ajalka ahayd in halkii kitaabada ama qoraalka uu gelayo rahanka waxa la yidhaah rahanku waxa weeyi dee qofkii deynta ku siiye shay intaad u dhiibtay inaad tidhaahdo waan rahmaye intaan deynta soo celinaya kaa usii hayso oo rahan inakuba rahan unbaynu nahnaa af soomaaliga waana luqa carabiya markaas aayadda u horeysaa waxay tilmaantay marka socoto la yahay ee cid wax u kala qorta la waayo dadkii wax istaymiyey ee deynna la kala qaatay waxaa halkii qoraalka gelayaa inuu yahay rahankaas in qofkii deynta qaatay uu rahan keeno oo kii deynta bixiye agtiisa u dhigo oo rahanka uu haysto inta deyntiisa usoo noqonayso rahanka waxa uu leeyahay 5 rukni ayuu ku taagan yahay waa arraahin walmurtahin walmarhuunu bihi walrahnu raahin waa kii wax rahmay waa kii deynta qaatay rahanka keenaa raahin la yidhaah almurtahin waa kii deynta bixiyey ee rahanka qaatay isaga loo dhiibay sii haynaya waa almurtahin walmarhuunu bihi waa kii sababtiisa wax loo rahmay ee deynta waxa weeyaan rahankaba sababo deyntii la qaatay ah والرهن وعين شيء المرهون وشيء للرهمي عين تيسا أما لفتيسي وين الرهن كنا هو الرهن وفعل بمعنى المفعول أي المرهون وكيل الرهمي خلاصة مركا وحا يتهي يعني الرهن كأركان تاله وحلو باهي هاي حالة عن كتاب اللهين رهن كسفر شرد ومعها oo in kuntum ala safarin wa sida qaalibka ah marka socotada la yahay in waxba la kala qoran karay ayaa wax la isku rahmaa de safarku waa sida qaalibka ah ama xaalada safarku waa xaalada loogu baahi badan yahay laakiin gaarku ma aha safarka oo iyadoo aan safar la ahayn ayaa wax la rahmi karaa oo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam diriciisi dagaalka diraca waxa looga jeedaa waa qalabkii birta ahaa ee seefaha iyo warmaha laga xidhin jiray waqtigii hore waa gaashaan oo kale marka macnaha waa shay bir ah oo jirka lagaga xidho si aan seefaha iyo warmuhu aanay wuxu yeelin xaaladda dagaalka marka qalabkiisii dagaalka nabiga sallallahu alayhi wa sallam isagoo muqiim ah oo nagi oon socoto ahayn ayaa nin yahuudiya agtiisa uu ku rahmay qalabkiisii dagaalka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaan u rahmay sida xadiidka ku ansaxday 30 saacan min shaciir 30 galaan oo heeda oo ninka yahuudiga rasuulku uu ka qaato ka deynsaday ayuu rahanka u dhigay qalabkiisii dagaalka uu isaga ilaalinaya seefa halka waxaad ka qaadanaysaa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayru khalqillah kii makhluuqa ugu mudnaa ayaa adduunyaha halka ka taagnaa yani raashinku reerkiisa u qaaday deyn markuu ku noqday rahmay wixii uu hayay oo diricii ama qalabkii dagaalka ah marka taasi waxay astaan u tahay adduunyo siday u liidatay aan qiimo u lahayn halkaas nabi maxamed ka taagnaa sallallahu alayhi wa sallam guriyaha nabigana waxa soo mari jirtay sida xadiiska nabiga ku sugan biladhan inaan dabba laga shidin 2 bilood 3 bilood Aisha markii la weydiiyay maxaa ku noolaydeena waxay tii alaswadaan labada madmadow ee biyaha iyo timirta ala kullin safarku marka shardi uma aha waxa la isku rahmayo oo rasuulku barahanka wuxuu rahmay isagoo muqiim oo nagi oo socoto ahayd laakiin safarka waxa loo idlaaqoon inta badan waa waqtiga loogu baahi badan yahay sidoo kale rahanku
shardi ma aha inuu noqdo maqbuud oo qofka murtahinka uu gacanta ku dhigo oo isagoon gacanta ku hayn baa shay maguurto oo hanti meel taale loo rahmi karaa oo ruuxu gurigiisa isagoo ku jiraba ayuu u rahmi karaa dee dayn ama wuxuu qaatay wayna ka samaynana imika dee ashyaada muhiimkaa marka la kala iibsado ama wax la kala qaato waxaa laga yaabaa gurigaaga faylkiisa inaad dhigto waa nooc rahan ah oo haddii wixii wax ka soo noqdeen dee gurigaagii loo qaadanayo maqbuudna maaho adaaba ku jiro dee ninkii aad u rahantay ma qaadan oo ma hayo markaa qabdiga farihaanun maqbuuda yacni waa sida haalibka ee shardi ma aha in rahan kasta uu maqbuud yaho qofkii murtahinkaa uu hayo isagoonu hayn baa lagu rahmi karaa marka rahankaas waxa uu degayaa maxalkii kitaabada waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu shahaada wa cadamu kitmaaniha markhaatigii in la caddeeyo oon la qarin oo alla waxa uu yihi walaa taktumu shahaadata waman yaktumha fainahu aathimun qalbuh shahaadadu guud ahaan maragga in la furaa waa fardu kifaaya oo ummaddu waxa ay ka warhayso inay ka markhaati kacdaa farad bay ku tahay calaa jihati alkifaaya waxaa looga jeedaa kifaayada dee qaar ka midii maragga hadday furaan intii kale waa ka dhacaya ay ku dambaabi maayaan haddiise cid furta la waayo way ku wada dambaabayaan kulligood qofka yacni dadka qaarkoodna waajib buu ku noqon karaa fardu cayn inay maragga furaan oo yuu fardu cayn ku noqonayaa qofku keligii markuu arrintaa ka warhayen cid kaleba ogeyn isagay fardu cayn ku tahay maragga inuu furo inuu qaryaano waa xaaraan haddii uu qaryana waa ku dambaabaya waayo alla waxa uu yihi walaa taktumu shahaada waman yaktumha fainahu aathimun qalbuh aayadda lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah haadihi alaaya markay soo degtay saxaabada waa ku cuslaatay waayo aayadda waxaa ka muuqata waxa qalbiga ku soo dhaca in lagu xisaabinayo qofkuna qalbigiisa ma kantarooli karo shar iyo khayrba waa kugu soo dhacaya laakiin dee waxa awooddaada ku jiraa waxa weeye inaanad ku camal falinoo aada isdhaafisood is-ilowsiiso laakiin wax badan baa ku soo maraya marka aayaddaasi markay soo degtay culays bay ku noqotay saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhi oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu yidhi lamaa naزlat calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi waslama lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wain tubduu ma fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah aayaddaasi markay nebiga kusoo degtay fashtadda dalika calى asxaabi rasuuli اllah faأtow rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam uma barakuu calى الrukab faqaaluu ay rasuula اllah kulifna min alacmaali ma nutiiq alصalaaة wالصiyaam wاljihaad wالsadqa waqad unzilat calayka hadihi اlaaya walaa nutiiquhaa aayaddaasi markay soo degtay saxaabada waa ku cuslaatay saxaabadii rasuulkay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam waxay yidhahdeen rasuulkii allow waxaana lagu faral yeelay acmaasha wixii awoodiya itaal aanu u lahayn salaadii soomkii sadaqadii jihaadkii acmaasha aanu karanay waana lagu faral yeelay waxaase lagugu soo dejiyey aayaddan mana awoodno waayo dee wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah ma dhowri karo ma ilaalin karo qalbigayagii xumaani way ku soo dhacaysaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku markaa waxa uu ku yidhi aturiiduuna an taquluu kamaa qaala ahlu lkitaabayni min qablikum samicnaa wacasayna war ma waxaad doonaysaan inaad tidhaahdaan sidii ahlulkitaabeyn yahuud iyo nasaare ay yidhaahdeen samicnaa wacasayna waanu maqallo waanu caasinay ma sidaasaad doonaysaan bal quluu samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbana wailayka almasiir rasuulku waxa uu ku yidhi war waxaad tidhaahdaan samicnaa waatacnaa waanu maqalay waananu ateecnay gufraanaka rabbanaa wailayka almasiir ilaahay ou dembi dhaafkaagaanu ku weydiisanay noo dembi dhaaf xaggaagaananu usoo noqonaynaa sidaa yidhaahda buu yidhi qaaluu samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbanaa wailayka almasiir waxay yidhahdeen samicnaa waatacnaa waanu maqalay waananu ateecnay allahay ou noo dembi dhaaf xaggaagaanu usoo noqonaynaa falamaa facaluu dalik nasakhaha allahu caza wajalla biqowlih markii ay sidaa yeeleen ayaa ilaahay aayaddaa hore xukunkeedii ku nasakhay aayaadkan ka dambeeya ee ay ka mid tahay laa yukalif allaahu nafsan ilaa wuscaha waayo dee laa takliifa bimaa laa yutaaq layskuma kalifo wax awoodda bani aadamka ka baxsan marka waxaa lagu nasakhay aayaddii hore
آيات كان ضمبي ألا ويري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفنا لغو كلفي مايو كران كيدا مويا وحكالي طبعا المؤمنين تسيد إلهي كغورمي إلهي بيبريين مركي هو قانسمين وحويان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إلى آخر الآيات سيدا حديث كالنبي كو أنصح ضي إلهي وحو كيري قال قد فعلت إلهي وحو روان دين يالي وحادي قد دونتين أي قد البتين وان يالي وقف إذين قبن مايو وحي أيضان برير السمين إذين قصدين كما إذين كدعا إلا وإذين قبن مايو وان إذين نحريسنا يا وإذين عفينا يا إلهي وحو قد فعلت إما إذان بريين وان إذين يالي وان إذين أقبلي مركا على كل إلهي الرحمة دي سوحا كمدأة دينو وحويان آيات ظاهرة النسخي حكم كيدي يدو لفظ كيدي الآخرية حكم كيدو هو منسوخ oo bani aadamka quluubtooda khawaatirta iyo waxyaabaha xunxun ee ku soo dhaca loo qaban maayo culimadu waxay ka soo reebeen aziimada iyo go'aanka kama dambaysta qofku markuu xumaanta ku gaadho taas loo qabanaya laakiin khawaatirtu waxa weeye waxyaabaha de maskaxdaada iyo qalbigaaga soo maraya ee ku dhaafaya waxa lagu qaban maayo haddaad se go'aansato inaad xumaantii samayso oo waliba u xarka xidhato asbaabteedii iyo wadooyinkeedii marto ده هو لغو قبنا يا تاس وهي عزمه وحاول لم يديها فعلك وهي هو نوع فعله دي قلبيه وقلبك أبدك قوصة فعلها وادي أقول دقاقي لكن وحي خواطره كوكسو دعي قفك هديها بين بصوم مرة عد كبد بادي سامتشرتو إلى هنا تاين نو قبن ماي الله وحوري وإن كنتم هدي هاتين على سفر دشي هدا كسقناتين وسعتتهين أو تداينتم وإحنا آكل دينستان أو ولم تجدوا أيدان هلين كاتبا قرا وحيدين قرا فرهان مقبوضة أي فالمعتمد عندكم وحأكتين الله عسكنا يأيدين سارني وحوي رهان رهموي مقبوضة لقبنا يوه ووحيابا للرحمو oo gacanta uu ku dhigayo qofkii deynta bixiyay ilaa inta deyntiisa uu soo noqonayso Allah waxa uu yiri fa in amina hadaba haduu aamino bacdukum barkin bacdan barkii kale oo rahankii la yira waan ka maarmay waxba rahmi waan ku kalsoonahay falyuaddi haguto marka alladhi tumina kila aaminay haguto amaanatu amaanadiisi oo deyntii daa iska soo celiyo wala yattaqillah إلهنا كعبصد الله ربه ربي أها ولا تكتموها قرننا الشهادة مرخاتها قرننا أو مرخاتها فرع وحي أدوكتهين عامها وفرض كفاية من لكن قفك فرض عين بيكون نقون كرتها مركا يسقمو يعيد كلباني أوغي ومن أحد كيكتمها ها شهادة دي قرية يسقو أوغ فإنه يسقو آثم وودن بابي قلبه قلب يسو قلبي وكقري أيا الله عبري وأنا وذا دنبابي والله ألنا بما تعملون واحد سمين إنسان عليم كيو علم بدن وي هدو علم بدن يهينا دو إذن كعب المرين ياوي لله الله وكلي أي أسقناتي ما في السماوات سموين كدحدود وحاك السقن إيه وما في الأرض وحار لذا دحدود كسقن إبا الله إسكاله الله هذا عرك إيا دولك إيا أنت وضح يسبب ملكيات ثلاثة إيا ما ملكنا إسقاله الله وحوري وإن تبدو هدي عاد موجسان ما في أنفسكم نفيه ندحدو ضوحي كسقناضي نفيه نوحا كسقن اللابتكو هايسان هدام موجسان أو تخفوه أما عاد قرسان وأيضان موجن يحاسبكم وأيضنكو حسابنا يا به شيء عاد لابتكو هايسان أما أد موجسان أما أد قريسان متك دونتا يلو يحاسبكم وإذنكو حسابنا يا به شيء قاسي الله الله يعني وحا نفتي إنكو السغن أما موجية أما هم موجينينا والله إذنكو حسابنا يا ومعنى والله إذن قبنا يا وي والله إذنكو عقابا يا وفيغفر وأودافا يا هو ألا لمن يشاء عدة ودون إلهي وأودافا يا
cidda uu doono inuu u dhaafo dee waa u dembi dhaafaya wayucadibu waa cadaabayaa alle man yashaa cidda uu doono inuu cadaabana waa cadaabaya wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii u awood badan weeyi walilaahi alxamdu walminna dee waxaa lagu nasakhay laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa waayo haddii kale mabaynaan badbaadneen alla waxau ihi aamana arasuulu rasuulku waa rumeeyey bimaa kii ayaa uu rumeeyey unsilo la soo dejiyey ilayhi isaga lagu soo dejiyey oo min rabbihi rabbigii xaggiisa looga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintuna waa rumeeyeen ku cadaf rasuulka kullun mid wal oo ka mida mu'miniinta iyo rasuulka ay kullun minhum dheh mid kastoo ka mid ah mu'miniinta iyo rasuulku aamana waa rumeeyey billaahi alleh oo kullun iyadoo nakira ah waxa u cunansiinaya dee haddana ibtidaha dee wasfigaa loo soo qadarayo oo kullun ay minhum aamana billaah kullun mid wal oo minhum ka mida mu'miniinta iyo rasuulku aamana billaah ilaahay waa rumeeyey iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisaba iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulih rusushiisaba waa rumeeyey qaa'iliina xaalo ay leeyihiin ayaa ay rumeeyeen laa nufariqu haddaba kullun haddii lafdiga loo celiyana waa mufrad lafdigeedu kullun oo qaa'ilan baa la odhanayaa kulligaasi xaal u leeyahay qaa'ilan kulligu oo lafdiga mufradka amarkaa loo celinayaa haddii macnaha jamaca loo celiyana kullun ilain macnaheedaa jamaca oo waxay tilmaamaysaa mu'miniintii oo dhan iyo rasuulkii ah macnaha haddii loo celiyana qaa'iliina dheh xaal ay leeyihiin laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin min rusuli cid rusushiisa ka mid ah ilaahay kala geyn mayno oo macnaha waa wada rumaynanaa sidii ahlulkitaabka dee badhna rumayn mayno badhna beenin mayno ee kulligood waa wada rumaynanaa rususha baynana waxay dhex dhacdaa bayna mutacadid shay jamacoo tiroobaya oo tirsan ayay dhexdooda dhacdaayo mufrad lama geliyo bayna marka axadkan baa bimacna albacdi ama bimacna aljamci ah oo laa nufariqu bayna axadin ay bayna jamcin min rusulihi koox rusushiisa ka mida kala geyn mayno oo iimaanka ku kala kaxayn mayno ee waa wada rumaynanaa weeyi wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen mu'miniintii samicnaa waanu maqlay allahayow waxaadna amartay oo aacnaa waananu yeelnay oo waa ateecnay gufraanak ay nas'aluka gufraanak allahayow waxaanu ku weydiisanaynaa dembi dhaafkaaga inaad noo dembi dhaafto rabbanaa rabbigayow dembi dhaafkaagaasaanu ku weydiisanaynaa wa ilayka xaggaagunbuu ahaaday allahayow almasiiru ay almarjicu waalma'aab noqodkuna xaggaagunbuu ahaaday laa yukallifu llaahu ilaahay ku kallifi maayo nafsan nafna ilaa wuscahaa karaankeeda ay karasa mooye nafna wax kala saari maayo lahaa naftaasi ayaa ay u sugnaatay maa kasabad wixii ay kasbatay shaqaysatee khayr ah wa calayhaa nafta dusheeda ayay ahaatay maktasabad waxay shaqaysatay ee dembi ah rabbanaa laa tu'aakhidnaa waxaa kaloo yidhaahdeen mu'miniintii rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha nagu qabanin in nasiinaa haddaanu ilowno aw akhta'naa ama aanu gafno oo si kama ah aanu wax u samayno annakuun u badheedhayn rabbanaa rabbigayow ayaa mu'miniintii ay yidhaahdeen walaa taxmil ha nagu xambaarin calaynaa korkayaga israa culays aanan qaadi karin ilaahay oo xamil aanan qaadi karin hana saari kamaa xamaltahu sidaad ugu xambaarisay eed u saartay cala aladiina kuwii min qablinaa annaka naga horreeyey waxay mu'miniintii yidhaahdeen ilaahayow culays aanan qaadayn hanoo xambaarin sidii kuwii naga horreeyey culayska loogu xambaariyey rabbanaa rabbigayow walaa tuxamilnaa ha nagu kalifin inaanu xambaaro yacni waa atakliif bitaxamul tuxamilnaa shadku walaa tuxamilnaa waxay muuminiintii yidhaahdeen allahayow ha nagu kalifin inaanu xambaaro maa shay inaanu xambaarno allahayow ha nagu kalifin oo ha nagu dhibin shaygaasoo laa taaqata awoodi lanaa annaka aanay noogu sugnaanin bihi shayga
waxaanaan qaadi karaynaa allahayow hana saarin wacfu allahayow nacafi cannaa annaka oo wakfir noo dembi dhaaf lanaa annaka oo warxamnaa noo naxariiso anta adigu allahayow mawlaanaa gargaarahayagii baa tahay noo gargaarayey ee fansurnaa nooga hiiliyo nooga gargaar cala alqowmi alkaafiriina qoomka gaalada ah allahayow nooga gargaar aayaadkana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay in rasuulka muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo mu'miniintuba ay rumeeyeen wixii lagu waajibiyey inay rumeeyaan waxaa rasuulka loogu hormariyey aamana rasuulu iimaanka isagaa hormood ku ah oo ku hogaaminaya marka cidda ugu horreysee rumaysay waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam bimaa unzila ilayhi min rabbihi waxaa soo gelaya arkaan iimaankii oo dhan oo intan la sheegay iyo intii aan la sheeginba mu'miniintiina waa wada rumeeyeen waxaa mu'miniinta hadalkooda ka mid ah cadamu tafriiqi bayna arusul inaanay yani waxa weeyaan sidii yahuud iyo nasaara aanay rususha kala saaray oo aanay kala soocay oo ay wada rumaynayaan oo rasuul keliya oo la beeniyaa waa rusushii oo dhan oo la beeniyey hal kitaab oo la beeniyaana waa kutubtii oo dhan oo la beeniyey laakiin mu'miniintu kulli waa wada rumaynayaan rususha iyo kutubtaba mu'miniintii ilaahay bay baryeen waa caadada mu'miniinta aliltijaau ila allah waltadarucu ilayh ilaahay in la ysku dhuldhigo oo gacmaha la hoos dhigto oo rabbanaa rabbanaa lagu tadaruco dhulka la ysku dhigo waa caadada iyo sifaadka mu'miniinta ilaahayna waa ajiibo waa ka aqbalay oo qaala qad facaltu sida xadiidka ku ansaxday waan idiin yeelay baa alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala oo nisyaanka iyo gafka dembigooda waa laynaga rafciyey oo ruuxu waxa uu ilaabo dee ilaahay kuma ciqaabayo man naama can salaatin aw nasiiha falyusaliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila dak rasuulku sala allahu alayhi wasalam maxaa uu yidhi ninka salaad waxa weeyaan ka seexda ama ilooba marka uu xasuusta ama uu soo kucun ha tukado kafaara aan taa lahayn ma leh cadeedii hadday kaaga soo baxdo subxii adigoo hurda oon u badheedhin dee maa dambaabina markaasunbaa tukanaysaa wahaakadaa gafkii kii soomanaana waa la mid oo man nasiya fa akala wa shariba saa'iman ninka intuu ilooba cunee cabay isagoo saa'ima dee rasuulku wuxuu yihi falyutima sawmahu fa inamaa acamahu allahu wasaqaah soonkiisa ha dhammaystirto ilaahay baa quudiyo wax siiyey ma dambaabayo marka wixii nisyaan u dhacay sidaasaan dee waxa weeyaan aanad ugu dambaabayn waxaa la mida wixii kama u dhacay kama yacni umaad badheedhina waad yani waxa weeyaan qasadkaagamay dhicin laakiin waa gaf iyo kama bay kaaga dhacday dee laguu qaban maayo marka waa min raxmat illaah bi hadihi lumma ducooyinka ilaahay weydiistaan waxaa ka mid ah laa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina ilaahayow hana saarin culays oo hanagu xambaarin culays sidaad kuwii naga horreeyey ugu xambaartay ummadihii hore culaysyo ayaa saaraa innaka aan layna saarin oo culaysyadooda waxaa ka mid ahaa nimanka yahuudeed dilku markuu dhexdooda ka dhaco qisaas mooyaane diya may lahayn innakana qofkii dhiigga lahaabaa khiyaar u leh dee in ama loo qisaaso ama magti uu qaato ama uu iskaba cafiyo iyagase qisaas mooye diyaba may lahayn xukunkooda sidoo kale nimankii yahuudeed ee dibiga caabuday towbadoodii waxaa laga dhigay inay iyagu islaayaan oo gam iska dhigaan gacanta isku qaadaan waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi inakum dalamtum anfusakum biitikhaadikum alcijla fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum dalikum khayrun lakum cinda baari'ikum nimankaa yahuudeed ee dibiga caabuday towbadoodii maxaa laga dhigay faqtuluu anfusakum nafihiina dila macnaha maaha qofku isagu inuu isdilayo ee waa falyaqtul bacdukum bacda barhkiin barhka kala hadlaayo waa intii cusaadii dambaabtee dembigan gashay towbadoodii waxaa laga dhigay iyagu inay islaayaan waa arrin culus marka dee culaysyadii ummadihii hore ay ka mid tahay marka ilaahay culaysyada waa inaga badbaadiyey walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lanaa bih ilaahay raxmadiisa waxaa ka mid ah annahu laa takliifa bimaa laa yutaaq waxaynaan karti iyo karaan u lahayn inaan laynaguba kalifin
الشرائع الإسلام كأي تهاي ميسر فضود أو سهلا إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه دين توا فضودها يو حرج يما شقم له قفنا يسكما أتكيو إلا دينكم باك حكرون هذا يسكم بدولك وصدعة لكن دين توا فضيت كمعنيه سنة معها تين أوامرتنا لضيعنا واحدنا لرح دباش وحوي وحي لغو فري سيدي دينا دوغا صوب بحضو إيدا سهلة وحي لغو دينا سيدي دا دوغا تكتو ما جعل عليكم في الدين من حرج دين توا يسري إيا سهل إيا سماحة إيا ليدها عليس ملي إيا حرج إلهنا سبحانه وتعالى آيادا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها برحمته وفضله وحاو كنا سخي آيات دي هراء أهيد وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يا صحابة آد أقول بصدين يكون عصلاتي آيات دا سألقنا سخي مركوا الله ينقر دافي وحي مسكح دي نيمان كينا صومرة أما قلبي كينا كسور دعا إينا دافا وخواطرتا عزيمدو ووحي قلبي كاغا انتو كسوغنادو أدقو أنسطا إنا تسميسو دي كاسوا فعل كي وكالي لكن خواطرتي xumaantii hadhiya habeenba ku soo mareysay ilaahay raxmadiisa waa laynaga dhaafay oo laynoo qaban maayo rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri inna allaha tajaawaza li ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal ilaahay ummadayda wuxuu u dhaafay waxay nafaheeda ugu sheekayso waa qofku waxa uu naftiisa soo maraya ee ku soo dhacaya waxa ilaahay ummadayda waa ka dhaafay baa nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam ما لم تتكلم به أو تعمل أنت آني كهذا أما آني فعلان وسمين أو وحي عداد كهذا شو أفكار صور دافو أما أتسمي صوح ابنها جي جوارح دادي وكرعه ده والله جو قبنا يا يوات سميس الله وحوري آمن الرسول رسول كوار رميي بما كي وارمي الرسول كونزل لجو سودتي إليه حقيسة من ربي حقيسة لوجو سودتي والمؤمنون مؤمنين تينوار رميين هدب كل متكست أو كم ذا مؤمنين تيا رسولك أي كل واحد منهم مدول أو كم دوي كل منهم أي كل واحد منهم مدول أو كم كل منهم هذه الإيرانة دوا وصف كل واحد إنه إضافة وإضافة اللفتيدو وحيابها ده تخصيص كأيه مسوغات كم ذا يوعى ننسيه شيء يسوون كراين لقوا بالوضوء إلا كل واحد وإضافة نقول سمركاس آمن ورمي الرسول رسولك بما كي أيا ورمي ونزل لقوا سودتي إليه حقيس أو من ربه حقيس لقوا سودتي والمؤمنون مؤمنين تينوار رميين كل مدول أو منهم إياك كمدة كل منهم متكستو مؤمنين تي يا رسوشي كمده آمن ورميي بالله ألا ورميي إيا وملائكتي ملائكتيسا إيا وكتبه كتبتيسا إيا ورسله رسوشيسا ورميي قائلين حال إليهن دمانتود حقا معناها كل دي عام كأمرك الله إيغو أما قائلا حال وليه هي كله مرك اللفظ مفرد كالله إيغو دمانتود إيغو له لا نفرق كلاجين مينو إيمانك كوكلا كحين مينو كوكلا صار مينو بين أحد من رسله يعني عد رسوشي سكمد أما كوح رسوشي سكمد كوكلا جين مينو إيمانك إيوا وضرميننا وقالوا وحيدا سمعنا وأنو مقلي الله يوحدنا أمرتي وأطعنا وأنو أطيعنا وافلني غفرانك أي نسألك وحنو الله يكويدي سنينا غفرانك دنب دافكاغا ربنا ربك يو دنب دافكاغا نكويدي سنينا وإليك حقاغا ينبو هذا الله يو المصير نقط كدنبنا وحقاغا لا يكلف الله إلهي ككلف مايو نفسا نفنا الله كدب مايو إلا وسعها كران كيدا أي كرتمو نفنا إلهي وحكلا كدب مايو لها نفتاس وحي ليدهي ما كسبت وحي شقيسته خيرة وإيدا وآيسو مريه دا قرانيسا وعليها نفتاد شيدا وحا هذي ما اكتسبت وحي شقيسته ودنبئة وعقوبة ديدو إيدا يكون عيسى
waxay yidhaahdeen mu'miniintii waqaaluudii baa u qadarane rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddaanu ilowno aw akhta'naa ama aanu gafnoonu kama ku dhacno allahayow hanoo qaban wixii kama aanu u samayno ama ilow allahayow hanoo qaban ilaahay waxau yihi qad facaltu waan idin yeelay waa yahay rabbanaa rabbigayow ayaa yidhaahdeen walaa taxmil hanagu xambaarin calaynaa korkayaga israa culays allahayow hanagu xambaarin oo hana saarin kamaa xamaltahu sidaad culayskaa u saarteed ugu xambaartay cala aladiina kuwii min qablinaa annaka naga horreeyey rabbanaa rabbigayow ayaa yidhaahdeen walaa tuxamilnaa hanagu kalifin inaanu xambaaro maa shay inaanu xambaarna hanagu kalifin shaygaasoo laa taaqata awoodi lanaa annaka aanay noogu sugnaanin bihi shaygaas wacfu nasaamax cannaa annaka oo waqfir noo dhaaf lanaa annaka oo warxamnaa noo naxariiso anta adigu allahayow mawlaanaa gargaarahayagii baa tahay ee fansurnaa nooga gargaar cala alqowmi qolada alkaafiriina ee gaalada ah allahuma ansurnaa cala alqowmi alkaafiriin ilahu gaalo nooga gargaar bismi illaahi araxmaan araxiim suuratu aali cimraan waa madaniya wa aayaatuhaa mi'ataan alif laam miim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum nazla calayka alkitaaba bilxaq musadiqa lima bayna yadayh waanzla altawraata walinjiil suuratu aali cimraan waa madaniya bilijmaac aayaadkeedu waa 200 kelimaadkeedu waa 3460 kelmadood bay ka kooban tahay xuruufteeduna waa 14525 suuradda aalu cimraan bilowgeeda ilaahay waxa uu ku bilaabay tawxiid iyo keliyeynta alle cibaadadiisa lagu keliyeynayo suuradduna bilowgeeda laga bilaabo ilaa aayadda 83aad sababta ay ku soo degtay waxay ahayd wafdigii kiristanka ahaa ee najraan ka yimid ee rasuulka u yimid sallallahu alayhi wasallam ee dooda la galay iyagoo kala doodaya yani ciise waa ilaahay bay kala doodayeen oo ay kula murmayeen marka ilaahay subhanahu wa ta'ala suuradan bilowgeeda ilaa yani aayaadka ka dambeeya ayaa lagu radiyay oo hadalkooda lagu celiyo loogu jawaabay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala tawxiidkiisa ayaa uu ku tilmaamay isagoo cadeynaya in allah yahay keligii ka cibaadada mutaystay ciise ibn maryamna uu yahay adoon adoomadiisa uu soo diray rususha kamid ah in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani israa'il wuxuu ahaa adoon nicmada nabinimada loogu nicmeeyay ee waxa weeyaan de ilaahnimo xaq kuma la sifaadka ilaahayna wax kamida malaha bismillahir rahmanir rahim alif lam mim allahu a'lamu bi muradihi xurufta muqatta'aadka ah ee waxa weeyaan quraanka bilowgiisa suwar badan ku bilowday ku badan tafsiirka ugu raajaxsan ee lagu fasiray waxa weeyaan in la yiraahdo ilaahay baa garanaya wuxuu uga jeedo allahu a'lamu bi muradihi culimada qaar macaani kala ku fasira waa jiraan laakiin macnaha raajixi waxa weeyaan allahu a'lamu bi muradihi laakiin culimadu waxay sheegaan maqsuudka iyo ujeedada loo keenay waa i'jaaz waa nimankii carabtii markay yiraahdeen quraankani maaha kalaamullah ee waa hadal muhammad la yimid ayaa lagu cajsi gelinayaa oo la leeyahay quraanku wuxuu ka kooban yahay hadaatii nimankii fasiixiinta ahaa ee carabeed ee yaqaan luqada carabeed quraanku waxa uu ka kooban yahay waxa weeyi waa xuruuftii hijaayiga ee taqaaneen 28 xaraf ee alifka ama 29 xaraf ee alifka ee alif ba taasaadi aad taqaaneen buu ka kooban yahay oo de alif lam mim wa alifki wa lamki wa mimki marka haday runtii intaa maxamed la yimid quraankan uu hadalkii alla ahayn idinkuna isagoo kala keena waa lagu cariyay oo waati suuratul baqara inagu soo martay inuu tilmaanay arkeena baa la yiri isagoo kale de markay keeni waayeen waxa cadaatay hadal muhammad inaanu ahayn hadal ilaahay uu yahay marka macaanida ku jirta xuruufta muqatta'aadka waxa kamida al-i'jaz al-qur'ani mu'jizada qur'aanka in loogu muujinayay Allah waxa uu alif lam mim
allaahu aclamu bimuraadih ilaahay baa u cilmi badan wuxuu uga jeedo xuruuftaas allaahu alle laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye axad kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro macnaha waxa weeye macbuudaad fara badan baa jira oo la caabudo adduunyada dusheeda laakiin cid kastoon alla ahayn oo la caabudo gardaraa lagu caabuday alla mooyaane ilaahay uunbaa keligii ka xaq lagu caabudo dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil ilaahay baa keligii ka xaq lagu caabudo wax alla waxa ilaahay sokadii la caabudo baatil baa lagu caabuday iyo gardaro laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq marka haddaad tidhaahdo laa macbuuda mawjuudun mid la caabudaa ma jiro dee waa qalad waayo mid la caabudaa wuu jiraa adduunka wuu ka buuxaa laakiin gardaraa lagu caabudaa marka waa inaad tidhaahdo laa macbuuda bixaqin ilaahay wuxuu la gaariyey cibaadada xaqa ah laakiin cibaadada baatilka dee dad badan baa la caabudaa iyo waxyaabo badan marka laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa alle mooyaane ilaahay uunbaa keligii xaq lagu caabudaa wixii ka soo hadhayba cibaadadooda waa baatil alxayu huwa alle alxayu ka nool weeyaan nolosha dhammayska tiran ilaa horeynu usoo marray damiir inaanu nacti iyo mancuud midna noqone waxa weeyaan usoo qadar mubtade oo huwa alle alxayu ka nool weeyaan nolosha dhammayska tiran alqayuumu alle waa ka iskii u taagan makhluuqaadkiisana isagu maamula oo aayatulkursidii bay nagu soo martay alqayuum macnaha ugu xooga badanay inuu yahay alqaa'imu binafsihi almuqiimu ligayrihi waa ka iskii u taaganeen cid u baahnayn makhluuqaadka oo dhanna arrintooda u qumaya isagu maamulaya u talinaya kaasaa la ydhaha alqayuum nazala waa soo dejiye rabbi nazala waa tadciifo wuu soo dedejiyey yacni waa nuzuulan mutakariran ama nuzuulan bacda nuzuul nazala waa soo dejiye hal mar buu noqon karaa laakiin nazala waxay tilmaamaysaa takraaru nuzuul oo qur-aanku wuxuu soo degay isagoo kala dambeeyo qaybqayba qaybqaybtaa iyo kala dambayntaa iyo noqnoqodka nuzuulka waxaa tilmaamaya tadciifka ku jira nazala marka nazala wuu soo dedejiyey alleh calayka korkaaguu nebi moxamed ou ku soo dedejiyey kolba qayb alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa bilxaqi xaq baanu ku soo dedejiyey musadiqan xaal uu yahay kitaabkaasi kii rumaynaya limaa bayna yadayhi limaa shaygii kaasoo bayna yadayhi hortiisa ahaaday yacnii wixii kutuba ka horeeyey isagoo rumaynaya oo u markhaati kacaya wa anzala alla waa soo dejiyey attawraata kitaabkii towraad ahaana ilaahay waa soo dejiyey walinjiila kitaabkii injiil ahaana ilaahay waa soo dejiyey min qablu ay min qabli lqur'aan qur'aanka hortii ayaa towraad iyo injiilba la soo dejiyey hudan ay haadiyeyni xaal ay yihiin towraad iyo injiil kuwa hanooninaya linnaasi dadka oo hanuun loogu soo rogay wa anzala waa soo dejiyey rabbi alfurqaana kutubtii xaqa iyo baadilka kala saaraysay alfurqaana looma jeedo qur'aankii ama kitaabkii hore loo soo sheegay waayo nazala calayka alkitaaba horaa loo soo sheegay qur'aanka marka haddii aad tidhaahdo wa anzala alfurqaana waa qur'aankii takraar bay noqon lahayd soo celcelin laakiin sida xoogga badan ee raajixii waxa weeye alfurqaana in la yidhaah waa jinsulfurqaan oo kutubtii la soo dejiyey oo dhan bay ku dhacaysaa ilan kitaab wal oo alla soo dejiyey furqaan buu ahaa oo xaq iyo baadilkuu kala saarayay marka wasfiga furqaan kitaab kastaa wuu lahaa marka waxaad tidhaahdaa wa anzala waa soo dejiyey alleh alfurqaana kutubtii xaqa iyo baadilka kala saaraysay ee qur'aanka iyo towraad iyo injiil iyo zabuuru daawuud iyo suxufu ibraahiima wa muusa iyo kuwii kalaba lahayd alla waxau uhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ka gaaloobay lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun daran wallaahu allana casiizun kii qaalib ahee gacan sarreeye weeyi ee cidina aanay beegsan karin ee cizada iyo mincada leh duntiqaamin aargoosiga ka u saaxiibka ah ee cadowgiisa iyo gaalada ka aargoosta weeyaan rabbi subxaanah ina allaaha alleh laa yakfaa kama qarsoona calayhi korkiisa shay-un shay kama qarsoona shaygaasoo fil ardi arlada dhexdeeda ku sugnaaday
iyo walaa fi samaa mid samada ku sugnaaday toona kama qarsoona huwa rabbi alladii allaha weeyi yusawirukum idinku qaabaynaya ee suuro ama qaab idin samaynaya fil arxaami ilmagaleennada hooyada dhexdooda ilaahay waa ka idinku qaabaynaya halkaa qaabkiina iyo suuradaad u ekaanaysaan halkaa ka ku samaynaya weeyi kayfa yashaa si alla sida rabbi u doono fii ayi suuratin maa shaaa rakabak suuro alla suuraduu doono iyo qaab alla qaabkuu doono ayuu alla isku kaa saarayaa uu ku ekaysiinaya ama uu kaa dhigaya cidduu doonuu ku ekaysiinaya aabbaha ama hooyada ama ku kaa dheero aan kuuba dhoweyn siduu doonu alla kaa yeelaya huwa rabbi alladii allaha weeyaan yusawirukum idinku qaabaynaya ee suuro iyo qaab idinku samaynaya fil arxaami ilmagaleennada dhexdooda kayfa yashaa sida uu doono ayaa alle halkaa idinku qaabaynaya laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye ilaahay unbaa keligii ka xaq lagu caabudo allihii alcasiizu ee haalibka ahaayee gacanta sarreeyey ee cid walba isagu muquuninayey allihii alxakiimu xukumka iyo xikmadaba isagu lahaa ama allihii aan khaldamayn shay walba meesha munaasabka ku adhigayey ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan dambana waxa uu ku tilmaamay soo dejinta kitaabka iyo kutubihii kale waxaan u tilmaamay alleh qur-aanka xaq inuu ku soo dejiyey nazala calayka alkitaaba bilxaq isagoo xaq ku dheehan waxaana alla caddeeyey qur-aanku inuu u markhaati kacayuu rumaynayey kutubihii ka horreeyey wixii ku yaalay ee towraad iyo injiil ahaa waxaana ilaahay ku tilmaamay kutubaha dhammaantood alfurqaan waayo xaqa iyo baadilka ayaa lagu kala saarayay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u goodiyey oo cadaab iyo cuquubo ku hadiday oo ugu hanjabay kuwa gaalada ah oo alla waxa uu yidhi ina aladiina kafaruu biaayaati illaah lahum cadaabun shadiid wallahu casiizun du intiqaam ilaahayna waa ka casiiska ah ee haalibkeen cidina beegsan karin cid ka adkaan kartaana aanay jirin mar walbana ka gacanta sarreeya leh waxaa ilaahay inoo caddeeyey sicatu cilmi illaah sida cilmiga ilaahay u ballaadhan yahay min dalaa'ili qudrati illaahi wa cadiimi khalqihi wa tawxiidih waxyaabaha astaanta u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa waxa ka mid ah dee afcaasha uu sameeyey la yaab kale ee aada iyo aadka u waaweyn oo ay ka mid tahay in allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa marka awooddiisa iyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisay daliil u tahay sidaa uu idin abuurayo iyo sicatu cilmi illaahi wa ixaatathu bikulli shay cilmiga alleh wax walba inuu koobay oo wax ka qarsooni aanu jirin oo laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ihbaatu ana alqur'aana waltawraata walinjiila kullaha munazalat min cindi illaahi subxaanah in qur'aanka iyo towraad iyo injiil kulligood ay yihiin kuwo ilaahay xaggiisa laga soo dejiyo oo munazal ah oo inzaal baa lagu tilmaamay wa anzala atawraata walinjiil iyo nazala calayka alkitaab inzaal baa lagu tilmaamo alle xaggiisa laga soo dejiyey wuxuu maxamed la yimid ma aha allah waxa uu yihi alif laam mim bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi abda-u ama aqra-u ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaya ama ku akhrinayaa weeyi allihii arraxmaani naxariistiisu ay ballaadhnayd ee caamka ay ahayd duu raxmatin waasica allihii arraxiimi yacni waxa weeyaan addoommadiisa u naxariisanayey ay duu raxmatin waasila waxaa kaloo lagu macneeyey arraxmaan allaha si guud u naxariista gaal iyo islaamba arraxiimina allaha si gaara ugu naxariista mu'miniinta wa kaana bilmu'miniina raxiima taana waa lagu macneeyey laakiin waxaa xoog badan oo awla ah الرحمن الرحيم الرحمن ذو رحمة واسعة الرحيم ذو رحمة واصلة ألف لام ميم الله أعلم بمراده إلهي با حروف تاوحي وغتشي ذكرنا إياه الله أله
أي هو الله هو رب الله اللويان ككلجي لعابده الله والمعبود بحق الله حق لقو عابد وي لا إله إلا معبود بحق مد حق لقو عابد أنا مجر إلا هو إسقموي هو ربي الحي كنول ويان نولشا دميس كتران إن جيرين كهرين يعني زوالنا أنو كدب إيمانين وعدم كهرين مجره زوال كدب إيمانيان مجره هو الحي الذي لا يموت لكن waxa weeyaan de makhluuqaadku dhamaantood waa dhimanayaan iyagu marka waa nolol dhameystiran oo kaamil ah al-qayyum allaha iskii u taagan makhluuqaadkiisana isagu maamulaya ee arinkooda u qumaya weeyi nazala waa soo dadajiyay huwa rabbi alayka korkaaga nabi muhammadow ayaa uu ku soo dadajiyay al-kitaaba kitaabka oo macnaha kolba qayb uu ku soo dadajiyay weeyi kolba qayb ay ku soo dageysay bil haqqi ملتبسا بالحق حال وكتابك ياهي متكدهن حق اي الله وسودجي مصدقا حال وياي كتابك كي رمينيا لما كي بين يديه هرتيس اهادي اي كتبه كهريه وانزل وسودجي يا ربي التوراة كتابك توراة اها اي والانجيل كتابك انجيل هذا من قبل هري اي وسودجي اي من قبل القرآن قرآن كهرتي اي الله سودجي هدى للناس أي هاديين وحين تثنيه وقدقنا وتوراة إنجيل هدى أي هاديين حال أيهين توراة إنجيل كوهنونين للناس ضدك أما هدى إيوه هنون وعدا للناس ضدك ومستر كابك حلدير اسم كفاعل وأنزل واسودك يا ربي الفرقان كتبتي حق يبادلك كالساري سينا إلهي واسودك وكتبه أردن منزل كايد بيكون عيسى إن الذين كوا كفروا كقالوا بي بآيات الله إلهي آيات كيس كوا كقالوا بي لهم وحيليهن عذاب كاسو شديد ضرن والله ألنا عزيز كي غالب قعنصر ريوي ذو انتقام أرغوس وصاحبه وحويا الضومد كوا دقالدا كأرغوس دي عذابه إن الله أله لا يخفى كما قرصون عليه الله إن الله أله لا يخفى كما قرصون عليه كركيس الله كما قرصون شيء كما قرصون والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وحيرية وحوين تونا شيء قاسو في الأرض أرلد دحديدا كسوغاني كما قرصون ولا في السماء كسمد دحديدا كسوغانا كما قرصون وكل إلهي وأويه علمي سوى عام هو ربي الذي الله يصوركم إذن قابين يصور إيقاب إذن يليه في الأرحام المقالين دحدودنا إذن كقابين إياه وصورة إيا عين كان نقون إيسان هلكا كسمين إياه كيف يشاء سي الله سيدو دوننا إذن صورين يو إذن قابين إياه الأرحام وجمع الرحم وحنا أرحام لوغو مقعابين رحمك لأنه يتراحم بسببه وحا يدي والله يسوقون حريصا وانتي وحويان وضع دلتي أما آبا وضع دلي أما أوره يكسو وضع بحي أما الرحم هي قرابة كده حيسا تواي سن حريستان ودتك واي اسك خيغان سداسا ارحام لو يري رحم كاس ايا رحمد لغو متي الله وحول لا اله الا معبود بحق مد حق لغو عابدا ما جرى الا هو اسق مويانه الله العزيز والله غالب كعن ربه اي هو العزيز اللي ان كما سفين كرتيده هو ربي العزيز كغالب كأجعنت سرية ويي الحكيم كحكم كأي حكمة ضبله ويان إيه خلد من هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلهي وحوله هو الرب الذي والله أنزل سودتي عليك كركاك كسودتي النبي محمد الكتاب كتابك قرآن كاكو سودتي منه كتابك وحكمده آيات باكمده آيات كاسو محكمات للسغي أو هن إيغو آيات كاسي أم الكتاب كتابك أسل كيسي أساس كيسا هو يدو وهلك الله صنقضه مركا أمي وحا لوغو تلمامي
ومرجع آيات كوردم أي أصول نقنيان أي أصل كوا وأنا سيدا وبدنيه غالب كيسويها القرآن وأخر وحلوق بلابي وغالب كيسيد وبدنيه القرآن وأخر وآيات أخر وحكلوا كم إذا كتاب كي آيات كله أو يجو كوبان آيات كلا أو متشابهات اسكو أج معناها معاني تربضا حنباريسة ومتشابهات كو حوي ومعنى إصلاح قلي أون لك لسوعي كرين أو ضدك كقرصون اشتباه واسداس الله وحوري فأما الذين كوي مياه الضبا في قلوبهم قلب يدو دحدو دو كسقنا زيغ لا حشدوا حق كبيري فيتبعون وحي راعيان ما تشابه ما كيبي راعيان تشابه إسوء كاضي ومنه كتابك كمده inta yare isku eegay macaanida dhowrka ah ee waxa weeyaan isku dhex jira xambaaraysa ayaa ay dooranayaan oo ay doonayaan maxay ka u dooranayaan ibtigaa alfitna fitna doonis ay doonayaan darteed bay u dooranayaan ka iyo ibtigaa ta'wiili leexintiisa doonis ay doonayaan darteed ayay ka u qaadanayaan الله وحوري وما يعلم ما أوجا تأويله كمتشابهة تفسير كيس أما حقيقة دي سموجا وهي معناها تأويلكو لحين يتحرف والنقضاء عاقبة إيام مآل كعرب تدنبوا النقضاء تفسير كوان نقضاء انتبه الله إطلاقا مركا كاهر واللي حين كان دمروا تفسير نوال قوة إطلاق كرا ولا قوة معنى كرا الله وحوري وما يعلم ما أوجا تأويله كمتشابهة تفسير كيسة أما حقيقة دي سموغا إلا الله ألمو يعدك له إيا والراسخون كوا كحد الدايستي كل راسخي في العلم علمك مركا هدو بينو شرح دونايا مركا الله يسكو عطفه وحويان إلهي الراسخين تنباؤك وانا تشابه النسبة وينو شيقي دونايا marka illa allah waqfi laazima halka lagu joogsado la kala gooyana illa allah alla mooyee cid kale ma oga weey warasikhuna waa la ibtidaysanaya jumla bilaabana soo istinaafiya ayaa ay noqonaysaa waa laga goosanaya wama ya'lamu ma oga ta'wiilahu tafsiirkiisa illa allah alla mooyaane hadaad halka ku joojiso warasikhuna waa jumla madax banaan oo horlood bilaabanayso oo wuxuu macnuhu noqonayaa warasikhuna kuwa ku raasukhay ku sugnaaday في العلم علمك كراس خينا يقولون مركاو مبتدئ خبر جملة خبر دعس يقولون وحي ورانيان آمنا ونرمين به كمتشابها كل مدول أو كوان كمدأ محكم كي متشابه با من عند ربنا ربك يأكتسوا كهذا بي ورانيان وما يذكروا كموان توب كتابك أو مقاتو كمتوسنادو إلا أولو الألباب عقلك فيوك وصاحبك أمويه عدك لكم وأنت وضوحكم قادته وحكى الله يورانا يقولون ديبا وقدرنا يقول دعيسنا يا ربنا ربك يو لا تزغ هل حنن قلوبنا قلبي يضيض الله يوحقها كل حين وكدون بعد إذا هديتنا انت أدنهنوني سيد بديد الله يوهن الليحن ووهبنا سيلنا أنك من لدنك أكتاد الله يو نغسي رحمة حريص نغسي ويا إنك أدقو الله يو أنت أدقو الوهاب كبحن تبضن أياتها ربنا بيورنا يا ربك يو إنك أدقو جامع الناس ضدك كي كل من ياته سو أرورنا يا ليوم لأجل يوم مال درتي بعد أصو كل من marka laamka sidiisa loo daayo amaba laamka bimacna fi di dharfiyada ahayd ka dhigo waxa tiraahdaa li yawmin ay fi yawmin maalin dhaxdii baad soo kulmin maalinkaas oo la rayba shaki fihi yawmka aanu ku sugnaanin maalin dhicitaankiisa iyo imaatinkiisa shaki aanu ku jirin oo hubaal ah inna allaha alle la yukhlifu mabaachiyo الميعاد بلنتي سيلاهي مبريو مباشيو إوا بوحيا أو رميا هذه الآيات إلهي وحو كغور رمي
kitaabka ilaahay nabi maxamed ku soo dejiyey inuu u qaybsan yahay muxkam iyo mutashaabih laakiin muxkamka uu u badan yahay mutashaabihana uu ku yar yahay haddaba muxkam muxuu yahay mutashaabihse muxuu yahay waxa culimada qaarkood ku fasireen muxkam aayaadka iyagu wax nasakha ee naasikhaadka ah mutashaabihana aayaadkii mansuukhaadka ahaa ee la nasakhay laakiin waxaynu maranaa macnaha ugu xooga badan ee raajixee waxa weeye muxkamaat waa al-aayaat alwaadixatu dalaalaat yacni muxkamaad waxaa looga jeedaa waa aayaadka dalaaladooda iyo macaanida ay tusinayaan ay cad yihiin oo macnahooda la yaqaano waadix cad u yahay oon madmadow ku jirin sida aayaadkii axkaamtii iyo xalaashii iyo xaaraantii iyo xuduuddii iyo aayaadka waadixa ah een wax shubha iyo madmadow ku jirin ayaa la yidhaha muxkamaat almutashaabihaadna waxaa la yidhaahdaa aayaadka macaanidoodu isku dhex jirtay ay isgelgelaysa ama ay isku eg tahay ee macaani dhowra ixtimaalaya oo weliba yacni laga qaadan karo ama ixtimaalaad ay ku soo aroori karaan macno xaqa iyo macno baatila labadaba dadku ay ka fahmi karaan xaqiiqa ahaan muraadka iyo ujeeddada aayaddu waa xaq waanu cad yahay laakiin maadaama macnahoodu uu yaro qarsoon yahay waxaa suurowda dadka ahlu fitnuhu macno baatila inay ka dheegtaan oo kala soo baxaan waxaana loo yidhi mutashaabihaad dadkii baanay u wada caddayn oo dad fara badan ayay ka qarsoon yihiin saasaa loo yidhi mutashaabihaad haddaba aayaadka muxkamaadka ee cadcad ayaa kitaabka asal u ah waxaa loo yidhi macnaha mutashaabihaadka macnahoodu isku eg yahay waxaa loo soo celinayaa muxkamaadka cadcad een caadku saarayn ee la wada garanayo kuwaasaa loo soo celinayaa waxa laakiin alla uu tilmaamay inay dadka ka mid yihiin dad ahlu fitno oo fitnaysan dadka fitnaysani waa maxay waa dadka macaanida waadixaadka ee cad ee muxkamaadka ah intay iska dhaafaan mutashaabihaadka kitaabka uun raadsada oo aayaadka macaani fara badan ixtimaalaya ee ay wax ka soo dheegan karaan uun ku dhegaya iyagoo kuwii waadixaadka ah isaga tegaya kuwaasi waa ahlulfitna waxaanay sidaa u yeelayaan inay dadka ku lumiyaan oo ku duufsadaan oo ku leexiyaan xaqiiqadana arrintaasi waa caddahay oo dadka ahlulbidaca wa ahlulahwaa dadka bidaca iyo hawada u saaxiibka ah had iyo jeer haddaad u fiirsato waxay daliishanayaan waa nas ama la ysku khilaafay ama la ysku haysta ama macaanidiisu ay ixtimaalaad badani ku soo aroorayaan laakiin nusuusta cadcad ee waadixaadka ee muxkamaadka ah daliishan maayaan kaa mutashaabihaana u celin maayaan kan muxkamka ah ilaan aayaddii haddii intaasoo macno ku soo arooro ay waxa weeyaan madmadow u galo tii muxkamka ayadee caddayd waa in loo soo celiyo marka la leeyahay mutashaabihna maaha fii xaqiiqatihi buu mutashaabih u yahay xaqiiqa ahaan waa cad yahay macnihiisu laakiin yashtabihu cala annaas waa dadka qaarkood ayuu ka qarsoon yahuu mutashaabih ku yahay laakiin culimada raasikhiintii way garanayaanoo macnahoodu waa u cad yahay haddaba tashaabuhu waa laba tashaabuh mutlaq ah iyo tashaabuh nisbi ah waxaa loo jeedaa atashaabuh lmutlaq waa ma sta'hara allaahu bicilmih waxa ilaahay cilmigiisa la gaar noqday cid kale aanay ogeyn waa mutashaabih tashaabuh mutlaq macnaha mutlaq waxa weeye laa yaclamuhu ila allah alla mooye axad ogi ma jiro oo waxaa ka mid ah dee waxa weeyaan sifaadka alle kayfiyaadkooga laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa ilaahay sida uu yahay kayfiyaadka sifaadkiisu isaga mooye cid ogi ma jirto waa mutashaabih mutlaqa laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab walaa waliyun saalix axad ogi ma jiro marka wixii aan xaqiiqadiisa ilaahay mooye cid kale ogeyn waa tashaabuh mutlaqa waxyaabaha qaybiga ah ee inaga maqan een rusul iyo cid kale toona loo sheegin waa tashaabuh mutlaq ah waayo ilaahay mooye cid ogi ma jirto xaqiiqadooda waxaa ka mid a xaqiiqat ruux wayasaluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila amru ruux tashaabuheedu waa mutlaq laa yaclamuhu ila allah cid xaqiiqadeeda qeexi kartaa ma jirto marka tashaabuha mutlaqa ihi waa ka ilaahay cilmigeeda la gaar noqday cid kale aanay ogeyn waa tashaabuh mutlaq haddaba mutashaabihaadkan marka lagu fasiro tashaabuha mutlaqa ah
waxa waajiba in lagu joogsado ila allah waayo culimadu ma oga marka waxay noqonaysaa wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waa waqfi laazim ah halkaa isku taag waraasikuuna waa hadal cusubood bilaabanayso khabarkuna yaquuluuna buu dhacaya markaa la kala goosanayo ee waqfiga laazimka ah waa marka la yidhaha tashaabuhi mutlaqa ahayn cidi ogeyn alla mooyaane laakiin tashaabuha nisbiga ah waxa weeyi wuxuu mutashaabih ku yahay binisbati ilaa bacdi annaas marka dadka qaarkood loo eego ayuu mutashaabih yahay laakiin dadka qaarkood mutashaabih uma ahae waa u cad yahay marka macnaha la qaatana waa la isku cadfayaa oo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waraasikuuna ma oga ta'wiilkiisa alla mooyaane iyo alraasikuuna fi lcilm waayo culimadu waa ogyihiin oo xadiidkii nucmaan ibnu bashiir muxuu ahaa ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaatu laa yaclamuhuna kaiiru min annaas xalaashu waa caddahay xaaraantuna waa caddahay waxaana u dhaxeeya arrimo isku eg eg oo xalaash iyo xaaraantu ay kala jiidanayso in badan oo dadka ka midina aanay ogeyn maxaa laga fahmayaa laa yaclamuhuna kaiiru min annaas dee in og baa jirto waa culimada raasikiinta marka waraasikuuna waxaa lagu cadfayaa allah marka ta'wiilka laga dhigo waxa weeyaan tashaabuha mid nisbi ah oon mutlaq ahayn qur-aanka si marka loo eego waa wada mutashaabih kulligii macnaha mutashaabiha waa marka loo jeedo qur-aanku wuu isku markhaati kacayaa wuu isrumaynayaa oo berhbedhkiisa kale ayuu u markhaati kacayaa oo allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan waa dhammaantii waa tashaabuh kulli ah ilaahay waxa uu soo dejiyey yacni war lagu hadlo iyo kalaamkii ugu wanaagsanaa oo qur-aanka ah kitaaban mutashaabiha kitaab isku eg eg ee yushbihu bacduhu bacda marka qur-aanka marka laga eego xagga xaqnimada iyo runta iyo iswaafaqa uu isku eg eg yahay waa wada mutashaabih walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira haddii alla cid aan hayni ay soo dejin lahayd wuu iska hor iman lahaa laakiin iswaafaqiisu wuxuu daliil u yahay inuu yahay min cindi illaah marka xagga iswaafaqa qur-aanku aanu iska hor imanayn marka laga eego dhammaantii waa wada mutashaabih dhinac kale marka laga eego dhammaantii waa wada muxkam kitaabun uxkimat aayaatu waa kitaab aayaadkiisa la wada sugay oo la itqaaniyey oon khalal iyo goldaloolo lahayn waa marka laga eego aayaadkiisu sida ay waxa weeyaan nidaam kaliya ugu wada socdaan ee ay isku waafaqsan yihiin ee wax istacaarudayo iska hor imanayo isburinaya aanay u jirin marka xaggaa marka laga eego itifaaqa iyo tacaarud la-aanta ay iswada socdaan ee aanay iska hor imanayn kitaabku kulligii waa wada mutashaabih oo waa isshabahayaa oo iskama hor imanayo kulligiina waa wada muxkam oo waa iswada waafaqsan yahay laakiin aayaadkan waxaa looga jeedaa waa tashaabuhii nisbiga ahaa iyo kii mutlaqa ahaa ee ku saabsanaa xagga macaanida oo aayaadka cadcad ee macaanidoodu ay caddahay waa aayaadka muxkamaadka waana sida qur-aanku u badan yahay aayaadka macaanidoodu isku yara isdhexgelaysa ee macaani fara badani ku soo arooreyso ee la kala jiidjiidan karana waa mutashaabihaadka laakiin mutashaabihaadka laftooda waxa marjicoo loo celinayaa muxkamaadka mutashaabihaadka laftooduna dadka kama wada qarsoone eh waxay ka qarsoontuun in dadka ka mida culimada raasikhiintuna waa ogyihiin oo waa garanayaan markaa qofka dee sunniga ee sunnada ku sugan waajib waxa ku ah had iyo jeer inuu ku tacalluqo muxkamaadka waadixaadka ah laakiin shubaha aanu raadin kolba meesha uu wax ka heli karo taasi waa dariiqada ahlulfitani waalahwaa alla waxa uu yihi huwa rabbi alladii allaha weeye anzala kusoo dejiya calayka korkaaga alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa minhu kitaabkii waxaa ka mid ah aayaatun aayaad aayaadkaasoo muxkamaatun la sugay oo macaanidoodu cad yihiin hunna aayaadka muxkamaadka ihi ummulkitaabi kitaabka asalkiisii iyo asaaskiisii weeyi oo isagaa loo soo wada noqonayaa muxkamaadkaas oo aayaadka kale loo soo celinaya muxkamka iyo mutashaabiha marka laysku soo celiyana macnihiisu waa muuqanayaa oo shubhadii waa ka baxaysaa wa ukharu wa minhu kitaabkii waxaa ka mid ah aayaatun ukharu aayaad kale aayaadkaa kale oo mutashaabihaatun isku eg eg oo macnaha macaani tiro badani ay ku soo arooreyso oo laysku qabqabsan karo
haddaba fa ama aladiina kuwii miyaa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugnaa zayqun leexashada iyo baydhidda ay xaqa ka baydheen fayattabicuuna kuwaasi waxay raacayaan maa tashaabaha wixii isku egekaada oo minhu kitaabka ka mid ah maxay u raacayaan ibtigaaa alfitna fitna doonis ay doonayaan darteed dadka inay ku fitneeyaan oo ay ku kala geeyaan iyo wabtigaaa ta'wiilih doonis ay doonayaan darteed leexinta ay macnihiisa leexin lahaayeen ama haddaad tafsiirka tidhaahdo dee si khaldan ay u fasiraan doonis ay doonayaan alla waxau yihi wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu yacni waxa weeyaan kitaabkaas ama aayaadka mutashaabiha ah ta'wiilkooda iyo tafsiirkooda iyo macnahooda yacni waxa lagu awilayo ee lagu fasirayo ma oga ila allah wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu kaa mutashaabiha ah tafsiirkiisa ma oga ila allahu alla mooyaane iyo waraasikuuna fi lcilmi kuwii cilmiga ku raasukhay markaad isku cadafto waa tashaabuhii nisbiga ahaa laakiin hadduu noqdo tashaabuhu mutlaqoo kulli ah ila allahu ku joogso ilaahay unbaa oga oo waxaad tidhaha wamaa yaclamu ma oga ta'wiilah tafsiirkiisa ma oga ila allahu alla mooye cid kale ma oga halkaa ku joogso waraasikuuna kuwa ku raasukhay fi lcilmi ee cilmiga ku xididaystae ku sugnaadayna yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay bihi yacni mutashaabihaas waa rumaynay kullun mid wal oo ka mida mutashaabiha iyo muxkamkuba min cindi rabbinaa rabbigayo agtiisuu ka ahaaday wamaa yadakaru kuma waantoobo ilaa ulul albaabi caqliga fayow kuwale mooyaane cid kale kuma waantowdo kitaabka wax kuma qaadato waxay odhanayaan iyagoo ducaysanaya rabbanaa duco yacni magac lagu ducaysto lagu tadaruco rabbanaa baa ugu badan uguna muhiimsan rabbanaa rabbigayow bay odhanayaan laa tuziq ha leexinin quluubanaa qalbiyadayada bacda id hadaytanaa maxay qalbiga u xuseen waayo maa sumiya alqalbu qalban ilaa litaqalubih qalbiga waxaa qalbi loo yidhi gadgadoonkiisa iyo leexleexashadiisaa fara badan sidaa darteed ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ducooyinkiisa u badan waxaa ka mid ahaa allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik allaha qalbiyada gedgediye bedbedelow qalbigayga diintaada ku sug xadiidkii anas waxaa ku sugan inay saxaabadu ku yidhaahdeen rasuulkii allow aamanaa bika wa bimaa ji'ta bih waanu ku rumaynaa adiga iyo waxaad la timidba ee hal takhaafu calaynaa miyaad noo baqaysaa qaala nacam ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa waxa uu nebigu yidhi haa waan idiin baqayaa waayo qalbiyada addoommadu waxay ku dhex jiraan laba farood oo ka mida faraha ilaahay oo ilaahay siduu doonuu u duwaa siduu doonuu u bedelayaa markaa sidaa darteed ku ducayso allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik rabbanaa rabbigayow ayaa ay odhanayaan laa tuziq ha leexinin quluubanaa qalbiyadayada bacda id hadaytanaa intaadna hanuunisay dabadeed oo wahabna sii lanaa anaka min ladunka agtaada waxaad naga siisaa raxmatan naxariis naga sii innaka adigu allahayow anta adigu alwahaabu ka bixinta badan baa tahay rabbanaa rabbigayow innaka adigu jaamicu nnaasi dadka kii soo kulminayaa tahay liyowmin ay fii yowmin maalin dhexdii ayaad soo kulminaysaa maalinkaasoo laa rayba shaki fiihi yoomka dhexdiisa aanu ku sugnayn oo dhiciddiisa la hubo oo aan laga shakisnayn ina allaha alleh laa yukhlifu lmiicaada ballantiisa ma baajiyo ee waa oofiyaa rabbi ina aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shaya waulaa'ika hum waquudu nnaar allah waxau ihi ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay lan tugniya ka deeqi maysa canhum xaggooda amwaaluhum xoolahoodu ka deeqi maayo ka tari maayo iyo walaa awlaaduhum caruurtoodu toona min allaahi ilaahay xaggiisa uga tari maayaan shay-a waxba u tari maayaan wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu waquudu nnaari naarta kuwii lagu shidayey weeyi haddii waquud la yidhaahdo waa isamkii wixii wax lagu shidayey oo xaabadii oo kale ah oo xaabay noqdeen haddii wuquud la yidhaah oo la godana waa shididda lafteedii oo waa masderka oo waxaa la yidhaha facuul iyo fucuul facuul wuxuu ku dhacaa isamka fucuulna masderka oo nafsu shay ah oo imika waduu waa isamkii waa facuul
وبيه لو يسقادن يلفتودا وضوء مركا ووغا لغدنا وفعول ويسقادت كلفتي سوى مستركي وهكذا طهور هي طهور واسمك وبيه لو يسقادن طهور بالضمنا ونفس التطهر ومستركي يعني طهارة قادشة اللفتيدي وي marka maanta waquudwa bil fathi waa kuwii lagu shiday xaabada aha ilaan ma aha waquud lama orano masterkii maaha shidida lafteedii wa ulaayka kuwaasihum iyagu waquudun naari naarta kuwii lagu shiday xaabada u aha weey waa isamkii kadaabi ali fir'auna daabuhum gaalada caadadoodu u soo qadar mubtadaha kadaabi ali fir'auna reer fircoon caadadoodii oo kala weeye fircoon iyo atbaacdiisii waxa looga jeedaa aalu fircoon ehelkiisii loogama jeedo de ooridiisii ama zawjadiisii mu'minad baabay ahayde waxa loo jeedaa atbaacdiisii gaalada ahayde gaalnimada ku raacay daabuhum gaalada caadadoodu ka daabi aali fircoona waa fircoon iyo atbaacdiisa caadaday lahaayeen oo kala weeyaan iyo walladina wadaabil ladina iyo kuwii caadadoodii weeyay min qablihim iyaga ka horeeyay gaaladaas waa nimankii yahuudeed ee mushrikiintii najraan iyo munaafiqiintii kale nabiga u yimid iyo kuwii la midka ah weeyaane kuwa caadadoodu waa fircawn iyo kuwii ka horeeyay caadaday lahaayeen oo kale xagga gaalnimada iyo kufriga wada reer luut iyo reer thamuud iyo reer caad iyo kufaartii ka horeysay oo kale كذبوا بآياتنا جملة وتفسيرية وحبي عضينسا واحد مودا إن يتهي جواب سؤال مقدر سؤال ماشي قدرا جواب تدي بالعدي يلا دقا ماشي أو كأنما إلا يري وما دأبهم أو كوا عاددهم محياهي واطن كذبوا وابينيين بآياتنا آيات كيجي وابينيين أو فأخذهم الله إلهي دباد وحقوق بذنوبهم بسبب ذنوبهم دم بيدود الدرتو دم سبب تودي بالله عقابي والله ألنا شديد العقاب كعقاب كيسو درنيا وي قل واحد كتر يا نبي الله للذين كوي كفروا قالوا بي واحد كتر ستغلبون والله إذن كات كان دونا نمنك يهودي رين مدينة وحويا كبر كي سنتاقوا كتر أيا وقهر ريا قل واحد كتر للذين كوي كفروا قالوا بي قال دي رين مدينة أي هرموت كواهايين ستغلبون والله إذن كات كان دونا وتحشرون وحنا الله يدين صورورين دونا إلى جهنم حقيدا الله يدين صورورين دونا وبئس وحا حمادي المهاد قوغشة يعني قوغل لدنا وحا حماتي هي جهنم المخصوص بالذم هي قد كان وحا هذا لكم يدين كيدين هذا آية لقوا أن توبوا وحلقوا قاتا يدين سقناتي ومحا يدين كو سقناتي في فئتين لبكو حود دحدود بآية يدين كو سقناتي labada kooxood iltaqata kulmay oo fooda istaray oo dagaal isaga hor yimid fi'atun kooxi tuqaatilu wa dagaalamaysa fi sabiilillah waxa uu soo qadaran fi'atun mu'mina waayo wa ukhra kaafiratun ta laga qaadanaya marka fi'atun mu'minatun koox mu'minadihi tuqaatilu waxay u dagaalamaysa fi sabiilillah ilaahi dartii bay u dagaalamaysa وأخرى كافرة وفئة أخرى فئة كلنا أو كافرة قال هنا تقاتل في سبيل الشيطان وضد الشيطان كي يكون قال ميسا لبضى فئة مدبا وحبا لغا شري فئة هوري مؤمنة با لغا شري أو تقاتل باجوكتا تندم بنا وأخرى كافرة دي ويتاغن تو ويتالا لكن وحكم مقن تقاتل في سبيل الشيطان وأخرى كوح كلا أو كافرة قالوا دينا دي تقاتل في سبيل الشيطان وي وضد الشيطان أي كود قال ميان أو يرون وحيوار كيان كوح ذا قال دي هم مؤمنين تي مثلهم لبن لاب كود بيوار كيان رأي العين إيش أركت ديدا يعني سيدا أي وار كيان أي سليهين الأركت وحي سليهين ويدون كل لبن لاب ميان مؤمنين تي والله ألنا يؤيد وحوتنا يا بنصره جرجار كيس وحو كحوتنا يا من يشاء الدودون ينو جرجاره إن في ذلك مذكور كالله صوشة وحيدين كسوغان لا عبرة وحلقوا عبرقاتو لقوا أن توبا كسوغان أو لأولي الأبصار كوا إندها وصاحبك يعني إندها كوا وصاحبك وإندها قلبك
ayaa kuwaan toobayo wax ku qaadanaya absaar waa jamcu basiiro oo basiiraduna waa caynu lqalbi waa isha qalbiga inahaa laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur marka waa indhihii qalbiga kuwa qalbiga basiirada ku leh ayaa kuwaan toobayo wax ku qaadanaya hadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay caaqibatu lkaafiriin cirib xumada gaaladu ay leeyihiin oo in la ciqaabayo oo cadaab iyo cuquuba u dambayso ina aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum waxaa kaloo ku sugan aayaadkan waxa weeyi in waxyaabaha loogu nusreeyey mu'miniinta ay ka mid ahayd rucbiga iyo argagaxa gaalada lagu riday oo labadan ficee kulmay waa kooxdii nebi moxamed hogaaminaya sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii maalintii beder kooxda kalena waa gaaladii quraysheed ee nebi moxamed iyo asxaabtiisa ka soo horjeedee ka hor timid labada kooxood waa kuwa markaa maalintaa beder markay fooda istareen tirada nebi moxamed iyo asxaabtiisa waxaa lagu qiyaasay 314 saxaabi gaaladana waxaa lagu qiyaasay 1,000 nin iyagoo gaaladu sidaa uga badan oo faraha iyo cadadkaa leh ayaa haddana dee waxaa lagu tuuray argagax sanulqi fii quluubi aladiina kafaruu rucb oo mar alla markay muuminiintii arkeen wallaahi way idinku libilaabmayaan bay yidhaahdeen waxay soo arkeenba hadday kun ahaayeen muuminiinta ka soo horjeedaa inay 2 kun yihiin oo ku libilaabmayaan waa argagax lagu tuuray ilaahay markaa nusradii muuminiinta ayuu siiyo walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla tira ahaan iyo cadadan wa cudda iyo tay ahaanba idinkoo ducafa ah ayaa haddana alla idiin hiiliyey waayo nasrigu faraha iyo cadadka maaha iyo cuddada waxa la haystee wama nasru ilaa min cindi illahi alcasiizi alxakiim xagga alluu ka yimaadaa nasrigu marka maalintaas ilaahay nasriga waxa uu siiyey mu'miniinta maalintaa beder oo yowmulfurqaan bay ahayd xaqii iyo baadilkii la kala saaray alla waxa uu caddeeyey cidda aayaadkaa ku cibro qaadanaysaa inay yihiin ulul absaar maaha indhaha aynu wax ku aragnay xisigee waa indhaha qalbiga waayo xaqiiqa ahaan qalbiga ayaa xaq iyo baadilka laga kala saaraa oo wax lagu kala gartaa qalbiga haddaad ka indha beeshana aragga indhaha ee muuqdee xisiga waxba kuu tari maayo muhiimku waxa weeye waa basiirada iyo aragga qalbiga alla waxa uu yidhi ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lan tuqniya ka deeqi mayso u tari mayso canhum iyaga amwaaluhum xoolahoodu waxba iyo walaa awlaaduhum ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay lan tuqniya ka deeqi mayso oo ka tari mayso canhum iyaga xaggooda ka tari mayso amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaaduhum iyo ubadkoogu toona min allaahi ilaahay xaggiisa uga tari mayso shay-a waxba ilaahay xaggiisa waxba uga tari maayaan ubadkooga iyo amwaashoodu toona wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu waquudu nnaari naarta kuwii lagu shidayey xaabada u ahaa weeyi waa isamkii kuwii lagu shidaye weeyi laakiin shidaalkii naarta ha odhanoo shididda lafteedii ha ka dhigin waayo shididdu waa masder waxa lagu shidayaana waa magacii oo waa xaabadii kadaabi aali fircawna ay da'buhum gaaladaa caadadoodu kadaabi aali fircawna reer fircoon caadadoodii oo kale weeyi iyo waladiina kuwii caadadoodii oo kale weeyi min qablihim iyaga ka horreeyey oo kuwa maxaa caado u ahaa kadabuu waa beeniyeen biaayaatinaa aayaadkayagii oo fa akhadahum allah dabeed ilaahay waxa uu ku qabtay bidunuubihim dembiyadooda wallaahu allana shadiidu lciqaabi ciqaabkiisuu ka u daran yahay weeyi qul waxaad ku tidhaha nebi allow liladiina kuwii kafaruu gaaloobay satuglabuuna waa laydinka qaalib noqon doonaa oo watuxsharuuna waxaa laydiin soo ururin doonaa ilaa jahannama jahannamo xaggeedaa laydiin soo ururin doonaa wabi'sa almihaadu gogol la gogladana iyadaa ugu xumaansho badan oo waxa ugu xun hiya jahannamaa ugu xun qad kaana waxaa ahaaday lakum idinka idiin ahaaday aayatun aayad baa idiin ahaatay aayad lagu waantoobo lagu cibro qaato oo maxay idinku ahaatay aayaddaas fii fi'atayni 2 kooxood dhexdood ayaa aayad lagu waantoobaa idinku sugnaatay labadaa kooxoodoo iltaqataa kulmay oo fooda istaro dagaal isaga hor yimid fi'atun kooxdaasoo mu'minatun mu'minadihi tuqaatilu markaa fi'a iyadoo nakira waxaa loogu bilowday wasfiga loo soo qadarayo tuqaatilu waa u dagaalamaysaa fii sabiili illaah
إلهي درتي بي أدقال مساكوحي والنبي محمد يا أصحابتي يوم بدر وأخرى أي وفئة أخرى كوح كلنا كوح ذاسو كافرة قالوا ذي أو قال إهنا هي تقاتل في سبيل الشيطان وضد الشيطان أي كد قال ما ينكواس يرون وحي واركيان قال ذاسي هم مؤمنين تي مثليهم لبالله كودا واركيان مؤمنين تي بين كل بالله ميان أي واركيان رأي العين إشارة تديدة أي رؤية كرؤية العين يعني سيدا يقوم موقتي إشيودا أي موديان إن كل بالله ميان بيو أركيان ومعناها أبما لينيان والله ألنا يؤيد وحوشيا بنصره قرقار كيس أيو إلهي كحوشيا من يشاء عدو دونين كحوشيو إن في ذلك مذكور كالله صوشيقو أرنتاس وحا إذن كسوغان لا عبرة وحلقو عبرقاتو لقوان توبا يا كسوغان أو ييوغو سوغيهين لولي الأبصار كوا إندها وصاحبك إيا أركتدا صحدا معناها وا إندها إيا أركتدا قلبك وحويان باطنك يا قرصون كوا ساكوا أنتوا وحكو قاتا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة ألا وحول زين وحلو قرحي للناس دتكي وحلو قرحي حب الشهوات وحيابها اللي تعليه النفط وإيلته تعيل كودي بالو قرحيه وقلبي قودو إيلانيا وحيابها اللي تعليه هي من النساء هوينك حقودي إيا والبنين إنما دي إيا والقناطير حول فربضن المقنطرة أول أورورية المجموعة حول وحويان لتولي أولا يستول ساري أول أورورية حولها الأورورية من الذهب ذهب كي والفضة فضة دي ذهب كي العكتية فضة دي بقى إيا والخيل شهوات كاسو فرضه والخيل هكو عطف والفضة وهي ذهب كي فضة وحلقوا بيامي والقناطير المقنطرة حولها فراها بضن إلا أوروريي أو ذهبية فضة والخيل فرضها ورنده إلا قناطير تلو ومشي خيلك لكن والخيل ده واحد كو عدفتان من النساء دي شهوات كاسو دمرك إيا والخيل فرضها فرضه المصومة لعلامديي أما الله توبري إلا الليليي أما لفوفيي وسائمة الغنم وحولها أريق كيسة فوفتا الله من الصوم إيا والأنعام نمعوليدي وأريق يقيلي يلقدي يوحي عينو دعانوه دنا عبا نعدكو دنا عنيني أيا نمعولي ليرا إيا والحرث بيرتي ذلك مذكور كالله صو شيغي او وحاسو الدنيا متاع الحياة الدنيا نولشتن الدنيا دي ليدتي دو اي ان ديرين راحديدي وي والله اللنا عنده اكتيس وحا اهادي حسن المآب مرجع وناكسن او لو نقضه هذه الآية إلهي وحو كتلمامي ضدك دبيعدودا وحا لغو امتحامي لغو ابتليو إلا تعليسيو لو قرحيي شيطان باو قرحيي شهواتك تعيل كودا شهواتك وحوي وما تميل إليه النفس وحنفته أيو إيلانيسو أي تعشهي أي وحويان هذه يشركة دبدعيسو أي لا شهوة النفس شهواتك أي نفط كدبا دعيسانا waa deyrka naarta oo hadii la sameeyo waxa ka dambeeyay la galawaa naar oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xufatin naaru bishahawat naarta waxa lagu deyro darbi looga dhigay waxa la waxay naftu jeceshay macaasidi iyo xumaantii ah وحفت النار بالمكاره وحفت الجنة بالمكاره جنادنا waxa lagu deyro lagu wareejiyay waxa la waxay naftu dhibsanaysi idan شهوات النفس وديرك النار قفك نفتيسة شهواتك أسي داية دي جنادنا وكقضية نارتنا وقليا عياذا بالله قفك الدنيا دا شهواتك نفتيسة كف الصحة لكن قفك أدونك انتو تشوغي نفتيسة شهواتك كحكمية وحلوغن نعمين يا آخر ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وحلوغن يا مانتا جنة واحد كل يدين وحكستو نفتي إنه أيضون تيجعلاته إلا أدون كيبات كسو حكميسي آخرات كقدر قيسة والجزاء من جنس العمل لكن أدون كان الشهوات كوان كو ولا قنايا آخرنا وان كدونيا اسكو هيلي ميسي
oo kuwii adduunka ku walaaqday waa kuwa alla yidhi waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuuna kamaa ficila biashaacihim min qabl iyaga iyo waxay jeclaayeen ee wanaag ahaa waa la kala teedo waa la kala xijaabay ma helayaan oo way ka qadayaan laakiin qofka maanta naftiisa xakameeya berri toolaa la odhanayaa ku raaxayso shahawaadka waxaa loogu soo hormariyey dumarka waayo iyagaa ugu daran oo nebi maxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa dabaday kagamaan tegin ragga wax kaga dhibaato badan dumar waxa ugu daraneen ka tegay waxa weeyaan buu nebi maxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam ee ragga ugu adag ee ay ku fidnoobaan waa dumar walidaalika ayaa laynooga digoo la yidhi fattaquu dunya wattaquu nisaa fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa war adduunyada iska jiroo ka baqda dumarkana iska jiroo iska ilaaliya waayo reer banu israa'iil wixii ugu horreeyey lagu fidneeyey haween bay ahaayeen sidaa darteed ayaa maanta gaaladu dumarka ay ku dadaalaysaa iyagoo qaaqaawan oo cawradoodii bannaanka ay taallo inay bannaanka usoo baxaan oo shahawaadka ay ummadda dhexdooda ku faafiyaan waa hadafka gaaladu ay doonayaan ay maanta ku dhaqmaan dumarkeennii muslimaadkaa qaar ka mid ihina gaalay ku dagmeen oo ay ku lugo-een oo guryihii ka soo saartay oo bannaanka usoo bixiyey oo xijaabkii ka xayuubiyey marka annisaa waa fitno aada u daran sidaasa loogu soo horreysiiyey raggana wax kaga darani dumar ma jiro marka ragow waa inaad ka digtoonaataan fitnatu nisaa weliba gaar ahaan da-yarta iyo dhallinyarta ayaa ugu nugul oo ugu cabsi badan inay ku fidnoobaan wadiiqada yarina waddada weyn bay kugu ridaa bahlaha aynu qaadane moobilada la yidhaahdaana waa fidno sideedii oo socota oo iyagoo socda ayay kuu soo gelayaan markaa qofkii haddaanu ilaahay ka baqayn dee wuu ku halaagsamayaa waxaa ku xiga albaniin waxaa la yidhi albaniin waa min baabi takliib oo waxaa la xoog roonaysiye oo la qaalib yeeluun xaggii labka dumarkiina waa ku jiraan laakiin waxaa xoog badan oo la yidhi maya ee baniin waa loo qastay gaar ahaan oo dee dadka agtooda inamadaa loo kalgacayl badan yahi waayo inankii dagaalkii buu kula gelayaa wuu kula duulayaa wuu ku garab istaagayaa wuu kula shaqaynayaa wuu kula jihaadayaa wuu soo baxayaa laakiin haweenku waa daciif oo guriga iyo ubadkooga mooye dee awood kaloo dibadeed oo bannaanka ay ugu soo baxaan ma leh quraaradaa lagu tilmaamay rifqan bilqawaariir u baahan in loo tulo oo loo naxariisto marka inamada maadaama ay ka hawl karsan yihiin oo ka hawl badan yihiin ayaa loo soo hormariyey walbaniin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وحول فربضا ولا أروريي فرده ينمعوليدي يبيره أيال الشيء لكن وحا صوردا وحليلي ذلك متاع الحياة الدنيا بلنا نقيم لهاي وح الله وحا الله صور شيء ذهب يا فضة يا معدن ينمعولي يا دمر يا دولار يا وحول بله والراحير أو الدنيا أو الله قد دقميو وأن قيم لهاي الدنيا ندي قيمة مله maxaa laga dambaysiiyay waxa muhiimka ah ee ay mudan tahay in lagu dadaalo wallahu indahu husnul ma'ab ha ku dagmin adduunyada ee aakhiro u diyaar garow allah waxa uu zuyina waxa loo qurxiyay linnaas dadkii hubbu shahawaati waxyaabihi la jeclaa ee naftu ay doonaysay jacaylkooda dadka loo qurxiyay shahawaadkaas oo min an-nisaa haweenkii ah iyo wal baniina inamadii ah iyo wal qanaatiiri xoola farabadan al muqantarati oo la ururiyay xoolaha farabadan ee la ururiyay oo min adhahabi dhahabki ay wal fidda fiddadi iyo wal khayl fardihi shahawaadka min an-nisaa ku cadaf yani shahawaadkaas oo dumarkii ah iyo wal khayl fardihi al musawwamati waxa weeyaan la calaamadiyay ama la tababaray ama la foofiyay iyo wal an'aam nimcooleydi iyo wal harth beerihi ah ذلك مذكور كالله صو شيء الدنيا متاع الحياة الدنيا نلاشة الدنيا ذي الليدة الدنيا ومن الدناء أمدو ومن الدنو نلاشة الدنيا ذي الليدة أمدو راحة ذي يريدوي وحسن مهمة والله اللي عنده أكتي سواح هذا حسن المآب مرجع يميلون نقدو وناكسن أي اللي أكتي ساء والله سبحانه وتعالى أعلم.